kulan wanaagsan halkan waa raadiyaha rugsan ee magaalada muqdisho kusoo dhawaada warka duhurnimo waxaa halkan si wada jira uga akhrin doona haddii allah awood leedmo aadan ibraahim shawqi iyo anigoo maxamed cabdi xasan ah qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo shaaciyay in uu aqbalay raaligelintii madaxweyne Farmaajo xildhibaan ka tirsan Soomaaliland oo sheegay in dastuurkooda aanu ogolaan in qof xilka haya Soomaaliya uu tago Soomaaliland maxkamadda ciidanka oo xukun ku riday rag loo haysto kamid ahaanshaha al-shabaab Mareykanka oo duqeyn ka geystay degmada Jilib ee Jubbada Dhexe faahfaahin ka soo baxaysa dagaal ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhex maray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Kenya waxay gacanta ku dhigtay gaadiid loo soo waday Soomaaliya dawladaha Masar iyo Soomaaliya oo kala saxday isfaham dhinaca shidaalka iyo gaaska ah akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah agaasimaha isbitaalka magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo u geeriyooday caabuqa coronavirus iyo askar ku geeriyootay qarax ka dhacay dalka Pakistan وزدت بنك بيش لبعض لبض كوني لبعضن كوديار جروب رجسيال ففاين تقطب ضياد مغشين ودمستران مدحوينها مملكة سوماليلاند يا شاعية إنه أقبلي رالجلينتا مدحوينها دولة فدرال كاه سوماليا بل سوسن من كرين مقالة مقدشو هذا الكاب ومقالة هرجيسية هذا الكن وحومان تكشجي خطبة سنة كاو سنة كي بمركز جديو كان هور جديو قلها برلمان كمملكاسي محمد عبد أفقويا يفاين وركن maalmihii u dambeeyay waxaa jiray warar sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu tagi doono magaalada Hargeysa si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyadoo ay xusud mudan tahay in magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kulan horudhac ah ay ku wada qaateen labada madaxweyne iyo sidoo kale Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxaa jiray siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo arrinka laftirkooda dhaliilsanaa isla markaana ka warsugayay khudbadda uu jeedin doono madaxweynaha Soomaaliland oo sanadkiiba mar uu jeediyo Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay in uu aqbalay in madaxweyne Farmaajo ay ka wada hadlaan muranka iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhaxeeya balse marna aanay ogolaan doonin in magaalada Hargeysa uu yimaado waxa uu tilmaamay in haddii ixtiraaf ay ka helaan Soomaaliya kaliya markaa loo ogolaan doono in deegaanada maamulkooda ay yimaadaan wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii xasankeedii lagu diray ninkii sarkaalka haynasta Inacabe raalgelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ka xunaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkiisigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasad erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaayo ninka hadlaayo raaligelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raaligelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadlay doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaanu raacaynaa dhinaca kale xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland dhankiisa waxa uu qabaa in iyagu aanay raali ka noqon doonin marnaba in mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya uu tago magaalada Hargeysa isla markaana lagu soo dhaweeyo waxa uu tilmaamay inta bedelkeeda uu
ogolaanayo ama ay ogolaanayaan in dadka shacabka ah halkaa ay tagaan islamarkaana ganacsi iyo wax walba oo ay doonaan ay ka samaysan karaan, balse madaxda dalka marnaba aanay suurogelayn in halkaa ay yimaadaan. xildhibaan ahaan waxaa ma iman karo imanka farmaajo waddanka ma iman karo, waayo meel xun buu marayaa, dadkii baa kacay, maatidii baa kacday, agoomii baa qayliyey, waad yaabaysa xasuuqii baa ayaa haddaa Hargeysa maan joogto waan arki lahay. marka waxa weeyaan waxa ka wanaagsan isagoo yimaada inuu halkiisa isagoo jooga uu yidhaaho mar haddii labadii walaalo isqoon waayeen dad walaalo jaar noqon sida carabta oo dad walaalo jaaray Jabuuti, Soomaaliya, Jabuuti, dad saddex walaalaha labada kale marka iyo xadooda dad walaalo jaar ay noqon oo Soomaaliya marka aynu inaku xistaro oo cadowga iska ilaalino oo dusha iska ogaano mooyaane wax kale uu ku iman karaa farmaajo geesa ma jirto. bilow waa kii laga raacay waxaan ku diidanay deen ma ictiraafsanaba, wuxuu noo ictiraafsan yahay inaanu nahay Puntland oo kale, waynu gobol nooma ictiraafsan, waynu noo ictiraafay dowlad ahaan markay noo yimaadaan dadku dowlad ahaan bay noogu yimaadaan, laakiin ha noo ictiraafo inaanu dad Somaliland la yidhaaho oo dowlad nahay aanu gobol ahayn, ha noo ictiraafo. markaasuu iman karaa, adaa iman karo, isagaa iman karaa, annagaa tegi karna Muqdisho. wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa soo jiitamaya wax ka badan 10 sano iyadoo welina wax natiijo ah aan laga gaarin in labada dhinac ay ka wada hadlaan qadiyada Soomaaliya iyo Somaliland. waxaa xusid mudan in Somaliland weli dhankooda ay ku adkaysanayaan in ay doonayaan inay ka madax banaanaadaan Soomaaliya inteeda kale, balse dowladihii dalkan isku badbedelayay waxa ay ka aragti duunaayeen maamulka Somaliland oo mar walba waxa ay doonayeen in Soomaaliya oo mid la helo. maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa xukun ku riday rag loo haysto inay ka mid yihiin al-shabaab. raggan maxkamaddu xukuntay ayaa lagu sheegay in lagu soo kala qabtay degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood, kuwaas oo maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi u dhaxeeya 8 ilaa 10 sano. mahad mutawakil ayaa faahinay. cabduqaadir suufi muuye iyo saciid cumar cabdulaahi ayaa loo haystaa ka mid ahaanshiyaha al-shabaab iyo inay ahaayeen u qaabilsanayaasha al-shabaab xagga maamulka iyo maaliyadda ugu wakiilka ah tuulada Mareerey oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. eedeysanaha koowaad ayaa ahaa horjoogaha tuuladaas, halka eedeysanaha labaad uu qaabilsanaa xagga ururinta lacagaha dadka deegaanka ayuuna ka soo ururin jiray lacagaha. cabduqaadir oo magaciisa afgarashadu yahay Amiir Gaabow ayaa lagu soo qabtay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir howlgal ka dhacay 8 Oktoobar sanadii soo dhaafnay, halka Saciid oo magaciisa afgarashadu yahay Macni Saciid isna laga soo qabtay xaafadda Xamar Jadiid degmada Wardhigley ee gobolkan Banaadir 29 September ee sanadkii hore. xafiiska xeer ilaalinta ayaa 5 November codsaday in labada eedeysane loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe garsuga ahaan, waxaana mar kale baaritaan dheer kadib ay codsadeen in la muddeeyo dhageysigooda dacwadda 21 Janaayo ee sanadkan. horaantii Febraayo ayay maxkamaddu u fariisatay dhageysiga dacwadda labada eedeysane. cabduqaadir iyo Saciid ayaa ka sheegay fadhiga maxkamadda in labadoodu ay hoos tagi jireen Daqare oo isna dhuumaaleysi ahaan uga maqan sida la sheegay gacmaha sharciga. Ibraahim Aadan Daqare ayaa ah hogaamiyaha 10 tuulo ee kala ah Yumbis, Buule Kulan, Bangaley, Baladul Amiin, Moordiinle, Sabiid, Mareerey, Galaweer, Cumar Beere iyo Sagaalaad. waxayna labada xukunsane ahaayeen kuwo ku-xigeen iyo wakiilo ugu ah tuulada Mareerey. maxkamadda ayaa wadatashi dheer kadib go'aan ka soo saartay labada shakhsi ee kala ah cabduqaadir suufi muuye iyo saciid cumar cabdulaahi, waxayna ku wada xukuntay 10 sano xabsi ciidan ah sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. sidoo kale maxkamadda ayaa 8 sano xukun xabsi ciidan ah isna ku riday xasan luqmaan xuseen ibraahim oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Tabliiq iyo Luqmaan, kaas wuxuu ku eedeysnaa shabaabnimo iyo waliba inuu warbixinada dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa bakaaraha u gudbin jiray sida la sheegay warbaahinta shabaab. markana Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay degmada Jilib ee Jubbada Dhexe. qoraal ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaas khasaare ay u geysteen xubno ka mid ah al-shabaab. Ilyas Daawud Xasan.
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay duqeyn ay diyaaradeedu ku geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Duqeynta oo shalay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in lagu burburiyay xarun shabaab ay ku lahaayeen degmada Jilib. Taliska Mareykanka ee Africom ayaa ku waramay in duqeyntaas aysan jirin dad rayid ah oo ku geeriyooday. waxaana lagu sheegay warka ka soo baxay Africom in ujeedada duqeyntaasi ay ahayd sidii loo yareyn lahaa saameynta shabaab ee dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka AMISOM iyo Mareykanka ayaa sanadkan gudihiisa dhowr duqeyn ka geystay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyada oo khasaare nafeed uu ka soo gaaray dad rayid ah. sanadkii la soo dhaafay 2019 Mareykanka waxa uu Soomaaliya ka fuliyay 63 weerar sida uu ku xusay warbixin sanadeedkiisa halka sanadkii ka horeeyay ee 2018 uu geystay 47 weerar. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay Mareykanka in uu dafiro khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah ee ka dhasha duqeynta uu ka fuliyo Soomaaliya. faahfaahinna dheeraadan waxa ay ka soo baxayaan dagaal ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. wararka ayaa sheegay in dagaalkaasi oo waqti kooban ka socday bariga magaalada Jowhar uu khasaare ka soo gaaray ciidamada dowladda. Maxamed Ibraahim Jimcaale ayaa faahinay. faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo xalay gudaha magaalada Tani Jowhar caasimadda Hirshabelle ku dhex maray ciidamo ka tirsan Hirshabelle dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo number 1 oo ka tirsan xaafadda Horseed ee magaalada Tani Jowhar. waxaana dagaalku uu socday muddo ku dhow 20 daqiiqo oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday xarunta ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku sugnaayeen ayaa ku soo galay rasaas aad u xoogan oo laga maqlayay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar. wararka saakaan helena ayaa waxa ay sheegayaan in 2 askari ay ku dhaawacmeen dagaalka ka dhacay gudaha magaalada Tani Jowhar kaas oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabelle dowladda Soomaaliya oo ay wehliyaan ciidamada AMISOM iyo dagaalyahanada al-shabaab, balse khasaare intaasi ka badan ilaa iminka ma jiro. dhinaca kale wasiirka amniga dowladda goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ka hadlay dagaalka isla markaana barta uu ku leeyahay Facebook ku soo qoray in xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen kontaroolka laga soo galo magaalada Jowhar hase yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay iska difaaceen. xaaladda magaalada Jowhar ayaa degan saaka kadib markii dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay xalay weerar ku soo qaadeen magaalada Jowhar isla markaana dadku ay cabsi ku hoydeen. Maxamed Ibraahim, idaacadda Rugsan, Jowhar. aad buu u mahadsan yahay. markana dowladda Kenya ayaa gacanta ku soo dhigtay gaadiid loo waday gudaha Soomaaliya. booliska ayaa xabsiga dhigay 37 qof oo la sheegay inay la socdeen gaadiidkaasi. maxamed maxamuud geedi. hay-adaha ammaanka dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay 300 oo gaari iyo 37 ruux oo ah darawalada gaadiidkaasi. ku-xigeenka kormeeraha guud ee ciidanka Kenya Edward Mambungo ayaa booliska ku amray inay la wareegi karaan gaadiidka sharci darrada ah kuwa oo laga gudbinayo dalka Kenya isla markaana ku wajahan dalalka kale Tanzania, Uganda, Soomaaliya iyo Burundi. booliska ayaa gacanta ku dhigay 37 ruux oo la socota gaadiidkaasi sida sharci darrada ah lagu marinayay gudaha dalka Kenya, kuwaas oo aanay sheegin dowladda Kenya halka ay dalka ka soo galeen. dhowr toddobaad ka hor ay hay-adaha ammaanka gacanta ku dhigeen 5 gaari oo laga xaday UK isla markaana la geeyay gudaha dalka Kenya. gaadiidka UK laga xaday ayaa waxa uu kala ahaa Range Rover iyo BMW iyo kuwa kale. hay-adaha dakhliga iyo canshuurta dalka Kenya ayaa sheegay in gaadiidka sida sharci darrada ah lagu soo geliyo dalkaasi Kenya ay caqabad badan ku hayaan dhaqaalaha dalkaasi, kuwaas oo dadka laga iibiyo laga siiyo lacag raqiis ah. dowladaha Soomaaliya iyo Masarna waxa ay kala siixdeen waa isfaham dhinaca shidaalka iyo gaaska. hadal qoraal oo ka soo baxay wasaaradda batroolka ee dalka Masar ayaa lagu muujiyay in heshiiska isfahamka ee Soomaaliya iyo Masar uu dhigayo in khubarada masaarida loo diri doono Soomaaliya iyadoo la aasaasayo iskaashi wadajir oo labada dhinac ee u dhaxeeya shirkadaha shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ee labada wadan. Mahad Mutawakil ayaa warkan mar kale faahinay. wasiirka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa dhigiisa dalka Masar injineer Taariq Al-Mulla
waxay dhowaan kala saxiixdeen heshiis isfaham oo iskaashi howlaha shidaalka iyo kheyraadka ee soomaaliya iyo sidii ay masar taageero ugu geysan lahayd howlaha shidaalka gaaska dabiiciga ah iyo kheyraadka kale ee dalkeena hodanka uu ku yahay. labada wasiir waxay kulan ku yeesheen magaalada qaahira muddadii uu socday shirweynaha iyo carwada caalamiga ee batroolka dalka masar ee loo soo gaabiyey EGBS. hadal qoraal oo ka soo baxay wasaaradda batroolka ee dalka masar waxaa lagu muujiyey in heshiiska isfahamka ee soomaaliya iyo masar uu dhigayo in khubarada masaarida loo diri doono soomaaliya iyadoo la aasaasayo iskaashi wada jir ah oo labada dhinac ee u dhexeeya shirkadaha shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee labada wadan. dhinaca kale wasaaradda batroolka dalka masar waxay sheegtay in saxiixa heshiiska noocaas ah iyo taageerada dalalka lagu horumarinayo maalgashiga iskaashiga u dhexeeya dalka masar iyo wadamo dhaca afrikaanka inay khubarada masar gacan ka geystaan howlaha shidaalkii gaaska dabiiciga ah ee dalalka afrika iyo fursadaha shaqooyinka cusub ee shirkadaha masaarida ka helayaan dalalka dibadda ah. ugu dambeyntii agaasimaha isbitaalka magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha ayaa u geeriyooday caabuqa coronavirus. telefishinka dowladda Shiinaha ee CCTV waxa uu maanta sheegay in uu geeriyooday agaasimihii isbitaalka Wuhan ee lagula tacaali jiray daweynta bukaanada uu ku dhaco caabuqa coronavirus-ka. Liu Zahimingi oo ah madax ka ahaa isbitaalka Wuhan waxaa la sheegay in uu geeriyooday saacadu markay ahayd 4 saac iyo 30 daqiiqo oo barqanimo maanta xilliga dalka Shiinaha. telefishinka dowladda Shiinaha waxa uu sheegay in dhaqaatiirta ku guuldareysatay in ay badbaadiyaan nolosha mas'uulkaas oo u geeriyooday caabuqa coronavirus. bilowgii bishan dhakhtar kale oo la oran jiray Liwaliyang ayaa u geeriyooday isna caabuqaasi wuxuuna ahaa dhakhtar horay uga digayay khatarta caabuqaasi. malaayiin qof oo Shiinees ah ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan geerida dhakhtarkaasi. dhinaca kale tirada guud ee dadka caabuqa ugu geeriyooday Shiinaha waxaa la sheegay in ay gaarayaan 1868 qof halka in ka badan 72,400,000 qof ay la ildaran yihiin 72,400 oo qof ay la ildaran yihiin. xilligan ilaa iyo 25 wadan ayaa laga diiwaangeliyey in uu gaaray caabuqa coronavirus oo haatan loogu magac daray COVID-19. askari ka tirsan booliska dalka Pakistan ayaa geeriyooday iyadoo 3 kale ay dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen oo marayay deegaanka Kulaajiga ka tirsan degmada la yiraahdo Deera Ismaaciil Khan ee galbeedka dalka Pakistan. sarkaal lagu magacaabo Waxiid Maxamuud ayaa sheegay in meeno lagu aasay jidka dhinaciisa la kacday gaari boolis ah oo galbinayay shaqaale caafimaad oo lagu talagalay ka hortagga cudurka dabeesha ee talaalkiisu ka socdo dalkaasi. weerarada ka dhanka shaqaalaha caafimaad ayaa kusii kordhaya dalkaasi kadib markii kumaandosta Mareykanka ee ololaha booliyada ama dabeesha Pakistan uga adeegsadeen ugana faa'iideysteen dilka hogaamiye ururka Al-Qaacida Osama bin Laden bishii May 2011. dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Nigeria ayaa saddexda wadan ee kaliya oo caalamka ku soo haray cudurka dabeesha. guud ahaan dhegeystayaal saaxiib yeelinta ayaan kusoo gabagabaynaynaa warka duurnimo waxaa si wada jira u akhrinayay aadan Ibraahim Shooqi anigoo Maxamed Cabdi Xasanna waan idinla socodsiinay nabadgelyo. idaacadda Rugsan Soomaalida wanaag iyo samo u tilmaamkeeda jid sooban ku hagideeda wada saxiix marinteeda Rugsan baa salaxaysa. idaacadda Rugsan Soomaali dhaqankeeda gabay iyo suugaan maansada sameynteeda hidda sooban warinteeda murtidoo la soo xulay Rugsan baa u salaxaysa. idaacadda Rugsan saarida ogeysiis iyo dhah u sameynteeda suugaan ku larideeda saad fiican ku sharaxeeda badeeca la soo raray ee suuqa iska taal si fudud u gaarsiinta dadweynaha u sahlideeda Rugsan baa u salaxaysa. idaacadda Rugsan Soomaalida warsiinteeda mid sugan u tabinteeda xaqiiq ugu saleynteeda si xun wax u sheeg ka celintiisa Rugsan baa u salaxaysa. halku dhiga Radio Rugsan. Ana saake waxaan wado sahwi iyo sheekiyo ma heshay sal fududo waa warbaahin sugan oo cidna gaar u surnayn oo dadka wada simaysa. salka maanta loo dhigay Rugsan Radio iyo TV-ga la simanba loo saaray calankee soo dhaweyn kalka caliyo sacabada loo tumo.
rugsan raadiyo iyo tv-ga la dhinac suro waxay kuu sidaan oo kula socodsiinayaan hadalka ugu saxan iyo wacyiga ugu suuban iyo wakhtigaa wixii sugan iyo saacaddaa wixii jira raadiyo rugsan waxay kuu